السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawade inkastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurka iyo caafimaadkaba isagu hayo haddana waxaa jira in xanuun kastaaba uu leeyahay waxyaabo sababi kara in xanuunkaasi uu ku dhaco bini'aadamka sidoo kalena waxaa jira waxyaabo lagaga hortagi karo inta aanu xanuunkaasi haleelin jidhka bini'aadamka haddaba xanuunada wakhtigan bini'aadamka halakeeya waxaa ka mid a xanuunka kansarka noocyadiisa kala duwan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu hayana ha ka caafiyo kuwa aanu hayna ilaahay ha ka badbaadiye haddaba waxay khubarada caafimaadku sheegeen waxyaabo lagaga hortagi kara xanuunkaasi inuu haleelo jidhka bini'aadamka waxyaabaha ay khubarada caafimaadku sheegeen in lagaga hortagi kara xanuunkaasna waxaa ka mid a kow ka dheerow oo iska ilaali cabitaanka sigaarka iyo waxa la midka kuwaasoo la xaqiijiyey inay sababaan kansarka ku dhaca sanbabada iyo beerka sidoo kalena iskaga fogow meelaha lagu qiijiyo sigaarka waxaana la xaqiijiyey in dadka sigaarka cabba ay ka halis badan yihiin kuwa aan sigaarka cabbin ee laakiin qiiqiis uu ku baxo laba qorraxda aadka uu daran yahay kuleylkeedu iyadoo helitaanka qorraxdu ay muhiim u tahay jidhkeenna haddana waxay khubarada caafimaadku sheegeen in qorraxda kuleylkeedu aadka u daran yahay uu sababi karo kansarka ku dhaca maqaarka sidaa darteedna waxay ku taliyeen in marka fallaadhaha cadceeddu ay aad u kulul yihiin aanay ahayn inuu qofku isu dhigo heerkulka qorraxda ee noocaas ah saddex cuntooyinka isku dheelitiran isla markaana iska ilaali naaxitaanka ama cayilnaanta xaddhaafka kuna dadaal jimicsiga uu jidhkaagu u baahan yahay afar marka aad dareento xanuun isku day inaad si dhaqsaa isu baadho taasi waxay muhiim u tahay haddiiba nooc ka mida kansarka uu soo gala jidhkaaga ogow waxa wax laga qaban karaa marka uu xanuunkaasi dhow yahay shan ku dadaal cabbitaanka badan ee biyaha si joogtaa lix ku dadaal inaad isticmaasho cuntooyinka waddaniga ama cuntooyinka baal kale ilaa xadna yarayso cuntooyinka lasoo warshadeeyo ugu dambayn ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dembi dhaaf aad baad u mahadsantihiin